dalka Shiinaha ayaa soo bandhigay taangi aan dunida horay loogu arag oo waxyaabaha ku cusub ay ka mid yihiin inuu leeyahay tooreed aan cidna saarnayn, hanaan tamareed isku barxan oo ah hybrid oo koronto iyo motorba isticmaalaya, iyo qaab gabi ahaanba ugub ah oo ah inuu daroonada la dagaalamo isla markaana ay u dheer tahay in laftiisu uu sito daroono uu isticmaalo. dagaalka Ukraine ayaa waxa uu noqday qabrigii tawaangida ka soo bilow kuwii la sameeyay xilligii Soviyetka ee T-72 iyo T-80 ilaa kuwa casriga ah ee Yurub ku qalabeeyeen ciidanka madaafiicda goobta Ukraine sida Leopard 2 iyo Challenger 2 iyo xitaa kolay ku tahay midka uu Mareykanku sanceeyo ee aadka u culus ee Abrams, kuwaasoo kulligood lagu burburiyay daroono raqiis ah. sida lagu helay xogaha furan ee Orakis Intelligence Collective, Russia ayaa ilaa imika waxa ay dagaalka Ukraine ku weysay tawaangidhan inta u dhaxaysa 3800 ilaa 4000, halka Kiev lafteeda ay ka burbureen min 4900 ilaa 5000 oo taangi, sida uu Business Insider qoray bishii May ee sanadkan. dalka dalka Shiinaha ayaa imika waxa uu keenay qorshe cusub oo arrinta lagu xalinayo kadib markii jidadka Beijing lagu arkay tawaangi isu diyaarinaya rigada heerka qaran ee dhici doonta 3 bisha September ee lagu maamuusayo 80 guuridii ka soo wareegtay maalintii ay Chinese-ku Japan kaga adkaadeen dagaalkii labaad ee dunida. taangigan cusub ee casriga ah ayaana lagu sheegay magaciisa ZTZ-201, waana la sheegay in waxyaabaha ku cusub ay ka mid yihiin inuu leeyahay hanaan uu wax ku bartilmaameedsado oo isticmaalaya caqliga macmalka ah, habdifaacyo uu daroonka iskaga dhiciyo, iyo tooreed aan qofina saarnayn, taasoo ka dhigan isbedel cusub oo casri ah oo ay la yimaadeen ciidanka PLA. taangigan ayaana wali uu casri yahay misna waxa uu ka fudud yahay kuwa jiilka saddexaad ee Type 99A sida lagu qoray warqaadka South China Morning Post. tan kale wariga taangigan ku xiran ayaa maraarihiisa lagu sheegay 105 mm, kaasoo ka yar midka Type 99A oo ah 125 mm. waxa uu sidoo kale leeyahay hanaanka loo yaqaano GL6 ama ABS ee tawaangida lagu dhowraariyo, iyo sidoo kale radar 360 degree wax ka arki kara oo casri ah, sida uu sheegay ninka arrimaha gaashaandhigga falanqeeya ee Fu Jianshao. hanaankan waxa uu si joogto ah ula socon karaa deegaanada ku xeeran isagoo si automatic ah u howlgelinaya hanaanka hortag isla markaana qabanaya gantaalaha ku soo socda taangiga, madaafiicda iyo daroonada, taasoo si weyn u kordhinaysa taaqtaaqa taangiga ayuu yiri Fu. sidoo kale marka laga soo tago in taangigani uu daroonada iska dhicin karo, sidoo kale waxa uu dheer inuu leeyahay daroono uu isagu wato, taasoo ka caawinaysa sahanka iyo ka warqabka xaaladeed ee goobta dagaalka, taasoo askarta taangiga saaran siinaysa taageero dhinaca xogta ah halka uu ka noqon lahaa degal kaligii meel iska yaala oo aan war iyo wacaal toona haynin. waxaa sidoo kale taangigan lagu xiri karaa hanaanka cusub ee xogaha lagu kala qaato ee dagaalada casriga ah ee loo yaqaano networked warfare. sidoo kale tooreedka sare ee warwareega maadaama aanay qofina saarnayn, taasina waa sarakac tiknoolajiyadeed oo muhiim ah, waayo marar badan tawaangidu waxay baylah u yihiin in marka la dilo gaanariga sare ee tooreedka saaran sidoo kale halka laga soo geliyo bambooyin iyo wax la mid ah, tiyo dabcan la adeegsanayo laajka sare ee furan. waxa uu sidoo kale taangigani leeyahay capsule gaashaaman oo ay gelayaan askarta taangiga la socota, taasoo kordhinaysa badbaadada askarta. Fu oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in muuqaalkan cusub ee casriga ah ee taangigani leeyahay ay muujinayso in ciidanka xoogga dalka China ee PLA ay goordhow ka maarmi doonaan taangiyada hore ee Type 96 iyo Type 99. yeelkada dalal kale ayaa iyaguna bilaabay sancaynta iyo daraasadaynta tawaangida jeelka afraad ah ee leh hanaanada dhowraarineed ee casriga ah, khaasatan daroonada iyo gantaalaha. waxaana ka mid ah Ruushka oo tawaangidiisa T-95 iyo T-14 armata u diyaarinaya dhowraarino noocan ah, balse T-14 armata weli ma gelin wax soo saarka silsiladeed ee badan, walow uu jiro isla noocan oo horeyba loo soo saaray, balse waxaanu ka hadlaynaa noocan jeelka afraad ah ee leh hanaanada aanu ka soo hadalnay. ha yeeshee Shiinuhu maadaama uu leeyahay xajmi wax soo saar oo diyaarsan iyo kaabayaal aad u hufan, waxay u badan tahay in Beijing ay awood u leedahay inay durbaba bilowday soo saarista silsiladeed ama xaddiga badan ee taangigan cusub ee ZTZ
201. dalkaasi Mareykanka ayaa isna ka shaqeynaya sancaynta nooc cusub oo ah Abramis X oo isna leh farsamadan iyo sidoo kale midka kale ee M10 Booker iyagoo leh hanaano ay iskaga difaacaan daroonada iyagoo adeegsanaya tilaabooyinka hortag wax loo yaqaano countermeasures. dalka Ingiriiska ayaa isna doonaya in taangigiisa Challenger 2 uu ku bedelo midjeelka afraad ah oo la yiraahdo Challenger 3 halka Germany ay doonayaan iyana inay Leopard 2 ku bedelaan Leopard 3 kuwaasoo wada leh farsamooyin casri ah oo ugu horeeyaan qaab iskaga dhicin karaan daroonada oo iminka dunida wadna qabad ku noqday. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.